maanta shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay horey waxaan u cilaaminay in goobaha danta guud gaar ahaan jardiinooyinka iyo beerihii oo dowladda hoose in dadkii lagu wargelinayay in goobahaas la doonayay in dan guud lagu soo celiyo annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan u saarnay guddi iyo khubaro ku jiraan iyo sharci yaqaano si arrintaas aan uga dhabayn lahayn. intaas ka sokow waxaa noo soo baxday in dadkaas iyaga ah ganacsatada goobahaas degan in heshiis ay dowladda hoose markaas jirtay ee la gashay. heshiisyadii markaan fiirinayna waxaa noo soo baxay in heshiisyadaas aysan waafaqsaneen nidaamka sharciga isla markaana aan loo marin nidaamkii saxda ahaa oo aan tartan furan laga qayb gelin iyadoo maanta ay jirto baahi weyn loo qabo in bilicdii caasimaddan soo celinno muhiimna u tahay horumarka iyo caasimadda si bulshada u helaan goobo ay ku nastaan. sidaas daraaddeed laga bilaabo maanta waxaa dib oogala noqday isla markaan la baabi'iyey dhammaan heshiisyadii lagu bixiyey gobolka jardiinooyinka iyo beeraha ee dowladda hoose si shacabka Soomaaliyeed loogu soo celiyo ugu nastaan soo celinta bilicdaas. ganacsatada waxaa la farayaa in muddo 30 maalmood ka bilaabanaysa maanta ay ku bandeeyaan kalana baxaan wax alaal wixii agaba ee u yaala. qorshaha dowladda hoose ee Muqdisho waxay tahay in goobahaas lagu soo celiyo gacanta shacabka, gacanta dowladda hoose, isla markaana ay noqdaan goobo shacabku ay u isticmaalaan nasasho bilicdina qayb ka qaadata. ugu dambeyntii cid alaale ciddii tallaabooyinkan ka hortimaada waxaa laga qaadi doonaa nidaamka sharciga uu qabo. sababta muddada 30 cisho loo siiyana waxay tahay cid alaale ciddii tabasho qabtana ay noo timaado, laakiin annaga waxaa naga go-an in dhulka danta guud oo dhan la soo wada celiyo. qorshahana wuxuu noqon doonaa qorsho isdaba socda oo joogtaa. marka qof walba waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay si sharaf leh, karaamo leh, bacdama howl dan guud ayagana ay u haysteen inay dib u soo wada celiyaan. waa mahadsantiin.